gaar ahaan degmada Xamaro ee gobolka Eerara iyo gudoomiyaha degmada Xamaro ee gobolkaas Eerara ayaa waxa goobjoog ka ahaa xubno ka socday maamulka gobolka Eerara iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee degmadaasi. Dugsigan oo ah faraca kamida dugsiga sida gaarka ah loo leeyahay ee Umar bin Khattab ayaa waxa uu wareeg hore bixin doona heerka waxbarasho eber ilaa iyo fasalka afraad. waxaana dugsigan ku baxaysa dun lacageed oo kor u dhaafaysa 1 milyan iyo 500 oo bir taasi oo laga sugayo qurba joogta u dhalatay degmada Xamaro ee gobolka Eerara ee ku kala sugan daafaha caalamka ee dugsigan dhagax dhigay dugsigan kadib waxa madashaasi ka hadlay madaxa xafiiska xuduudaha gobolka Eerara mudane Fatxi Maxamed Muuse iyo gudoomiyaha degmada Xamaro mudane Khalife Xaaji Cabdullaahi. Mas'uuliyiintan ayaa uga mahad celiyay qurba joogta isku degan wanaagsan kuna buuriyay inay dhameystiraan waa hooy maxaan ku raahday loogu tala galay caruurta degmada Xamaro ku nool in ay wax ku bartaan ayna soo abaabuleen dad degmada u dhashay oo qurba joog ah aad iyo aadna aan ugu faraxsanahay. marka waa midda horumarka iyo maxaan ku raahday wax qabadka lagu gaaro arintaasi aniga oo matalaya maamulka gobolka Eerar in aan fursadan ka soo qayb galo oo aan dhagax dhigan iyo xafladan aan maanta aan u joogo waa fursad qaali ah aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. waa mid aan rabo haddana in aan ku sii booriyo cidii fikirkan kada timid kuwa la mid ah in ay la timaado. runtii waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay dhagax dhigan quruxda badan ee halkan ku sameynay kaas oo aaminsanahay in uu noqon doono mid wax ka tara baahida waxbarasho ee ka jirtay guud ahaan gobolka gaar ahaan degmada Xamaro iyo degmooyinka deriska laha aan chance kale horay u helin. waayo iskuulkan wuxuu ka mid yahay iskuulada khaaska loo leeyahay ee ay leeyihiin ay samaysto bulsho kuna yimaada fikir dad firfircoon oo aragti iyo hindise muwaadinimo leh ay sameeyaan oo curiyeen fula kaas uma taqaana fikirkan ku yimid waana maanta markii koobaad aan dhagax dhigno iskuulkan oo ah iskuulka ugu horeeyay ee gaar loo leeyahay ee la dhagax dhigo ama laga dhiso degmada Xamaro on rajeynayo in wax badan ka bedeli doono baahida waxbarasho ee ka jirta degmada. dhankiisana Jamaal Sheekh Maxamed Dacara oo kamida qurba joogta hawshan fulinaysa ayaa ka hadlay qorshahoodu waxa uu yahay wax qabadkan aanu ku talagalay inaan u qabanno ummadeena anagoo qurba joogtii oo matalayna dhalinyarada qurba joogta u dhalatay gobolka Eerar khaas ahaan degmada Xamaro yaanu ficil ku qaadanay inaanu uga faa'iideyno ummadeena danyarta ah iyo dhammaan shacabka oo dhan sida uga faa'iideysan lahayn waxbarashadan waxaa la yiraahdaa iskuul Umar bin Khattab oo ka jira Somali State ilaa iyo 10 iskuul baa ka jira qayb kamida buu noqon doonaa wuxuuna hoos tagi doonaa daladaas. dhankoodana waxgaradka degmada Xamaro ayaa ka mahad celiyay isku dagan wanaagsan ay ku dhaqaaqeen qurba joogtan u dhalatay degmada Xamaro ee gobolka Eerara waxayna sheegeen inuu dugsigan yahay mid ay si weyn ugu baahnaayeen. ilaa xad baan ku faraxsanahay maxaan ugu faraxsanahay dadka bini'aadamkii wuxuu ku kala fiicnada ama ku kala hormaraa waxbarashada iyo aqoonta ayuu ku kala hormaraa. waxa weeyaan ilaahay waxaan ka rajaynaynaa dugsigii dad tayali ka soo bixi lahaa dadkaas oo dalkooda iyo diintooda iyo ummadooda anfaca dugsigii noqon lahaa yaan ilaahay ku rajaynaynaa. qurba joogtan ka timid dibadda iyo maamulka gobolka iyo maamulka degmada ee noo dhagax dhigaya dugsigii Umar bin Khattab maanta noo dhagax dhigaya taasaan horta ku mahadnaqaynaa. waxa weeyaan qurba joogta oo ku boorin lahaa inaynan dugsigan kaliya nagu iloobin waxyaalo kalena ay noo qabtaan oo inta dabada iska soo riixaan ay wax qabad wadanka inay u la yimaadin taasaan horta ku boorin lahaa oo ayna noqonin wax dugsigan kada kaliya nagu ilooba. dugsigan kada waa hadilada isku day fiican iyo bilow fiican weeye laakiin waxaan u baahannahay waxyaalo kale oo fara badan inay qabtaan baan u baahannahay. intaasi kadib waxay mas'uuliyiintani shir la yeesheen waxgaradka qaybihiisa kala duwan ee ku dhaqan degmada Xamaro waxa uuna kulankani ahaa mid looga hadlayay ahmiyadda dugsigan iyo doorka ay bulshadu ku leeyihiin. Cabdikaafi Axmed Wali, telefishinka caalamiga ah ee SRTV degmada Xamaro.